Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii sheeko xiiso badan xogaal u noqo. Barnaamijkaasi oo ah barnaamij taxanaa waxaanad kala socotaan halka aan barta aan YouTube-ka ku leeyahay Maxamed Turki Channel. Barnaamijkan waxaynu maanta ku soo qaadan doonaa qiso markaasi dhacday. isla markaasina qisadaasi waxay ka dhacday dalka Sacuudiga. qisadani ayaa waxay ka dhacday dalka Sacuudiga waxaana ku dhacday gabadh markaasi ka timid dalalkan Afrika. Dabadeetana waxay timid dalka Sacuudiga. Dabadeetana markaasi waxay u timi gabadh ku nool dalka Sacuudiga oo markaasi ay shaqaale ahaan markaasi ay ugu timi. isla markaasina gabadhaasi waxay ahayd gabadh xanuunsanaysa gabadhan ka timid dalka wadamada qaaradda Afrika. Dabadeetana markaasi gabadhu muslimad bay ahayd. dabadeedna markaasi waxay doonaysay in ay markaasi ay u shaqayso reerkan Sacuudiyaanka. markaasi gabadhaasi waxay ka timi caruur yaryar oo markaasi aad u yaryar bay ka timi. isla markaasina waxa ay doonaysay in ay markaasi halkaasi ay uga soo saarto dhaqaalihii ay ku noolaan lahaayeen. markaasi gabadhan dalka Sacuudiga joogtaa waxay qabtay oo ay la nooleed xanuunkan macaanka. dabadeetana markaasi waxa ay bilowday in ay markaasi ay gabadhii ka timi Afrika ay u shaqayso. dabadeetana gabadhu say u shaqayn jirtay ayaa marba waxay ka warwari jirtay caruurteedii oo maadaama ay dal dagaalayo waxaas ay ka socdaan ay ka timi caruurteeda ay aad ugu warwari jirtay. dabadeetana maalinkii dambe ay gabadhii Sacuudiga joogtay ee loo shaqaynayay ayaa waxay ku tiri walaal horta waxaan ku arkaa adigoo mar walba warwarsan isla markaasina aan happy ahayn xaaladaada maxaa siya. kadib dabadeetana markaasi waxay ku tiri walaal waxaa jirta caruur yaryar ayaan leeyahay isla markaasina waxaan kaga imi dalkii aan ka soo tegay. markaasi iyagaan ka warwarsanahay oo xaaladooda waxay ku sugan yihiin war uma hayo. dabadeetana markaasi sanad bay ku ballameen in ay u shaqayso. dabeetana waxay siisay lacagtii sanadkaasi ay ugu shaqayn lahayd oo dhan. dabadeetana waxay ku tiri sanadkaas oo dhan caruurtaada la soo joog kadib dabadeedna hadhowtana aniga ila soo deg oo halkan ka shaqayso. dabadeetana sidaa markii ay ahayd gabadhii aad bay u farxday. dabadeetana gabadhii macaanka lahayd ayaa macaankii wuu ka tegey. isla markaasina ilaahay ayaa ka masaxay subxaanahu watacaala. dabadeetana dhakhtarkeedii ay ku xidhnayd bay u tagtay waxaanay ku tiri bal ishaybaadh oo xanuunkii iskuma haye bal ibaadh. kadib shaybaadh baa laga qaaday. dabadeedna waxaa la ogaaday in xanuunkii uu ka tegey. dabeedna waxaa lagu yidhi sababta xanuunkan uu kaaga tegey waa maxay. dabadeedna markaas waxay tiri ilaahay baa iga kaxeeyey. dabeedna waxay dhakhaatiirtii ku yidhahdeen dawo noocee baad isticmaashay kulleyba dawaad isticmaashay. dabadeedna markaasi waxay tiri waxaan isticmaalay dawo la yidhaahdo sadaqo. dabadeetana qisadii bay uga warantay. marka qisadani waxaynu ka qaadanaynaa qofku haddii uu dar ilaahay hadduu uu shay u sameeyo in ilaahay subxaana watacaala uu ilaalinayo. intaasi ayaan kusoo gebagabeynayaa qisadeenan gaaban. markaasi waxaan idinka baahanahay in aad like iyo subscribe aad saartaan. waa anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki. inta aynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.